qiyaas wiil yar oo ka yimaadey qoys sabool ah riyadiisuna ahayd inuu hal maalin wax ka bedelo mustaqbalka. Haddaba wiilkaas ayaa lagu magacaabaa Wan Juanfu, kaasoo nolosha ka soo bilaabay nolol aan haba yaraatee lahayn wax fursada, balse ku dhisay riyo iyo go'aan adag. Haddaba siduu wiilkaas ku dhisay boqortoyadan aan xad ka lahayn ee BYD, shirkadda ugu weyn ee baabuurta korontada adduunka. Sida yaataba sheekadan ma ahan oo kaliya mid ku saabsan hal-abuurnimo, balse waa sheeko cabsi ku abuurtay guud ahaan reer galbeedka oo dhan, ayadoona BYD ay noqotay awoodii ugu weyneed ee la tartanta Tesla iyo weliba shirkadaha caalamka oo dhan. Haddaba sidee ayuu wiilkan faqiirka u bedelay xeerarka ciyaarta una dhisay shirkad ka qeylisiisay dhammaan caalamka oo dhan? taariikhdu markii 1914 waxaa dhacday in kulan aan horey loo arkin uu ka dhaco gobolka New Jersey ee dalka Mareykanka. kulankaasoo u dhaxeeyay laba ka mid ah shakhsiyaadka ugu maskaxda iyo cilmiga badnaa waqtigaas. Haddaba labadan shakhsi ayaa lagu kala magacaabay Henry Ford iyo weliba Thomas Edison, ayadoona labadan nin ay kulankaasi uga wada hadlayeen project aad u weyn oo sira kaasoo inoogu talagaleen inay dunida oo dhan ku bedelaan. waxay yaataba mashruucaas ayaa ah suurtagalnimada soo saaridda gawaadhida elektarooniga, maadaama Henry uu ahaa nin ku takhasusay samaynta baabuurada, halka Thomasna uu ahaa nin ku takhasusay waxyaabaha elektarooniga iyo weliba korontada. Haddaba labadan nin ayaa waqtigaas ka wada shaqeeyay soo saaridda noocan gawaadhida elektarooniga ah, asagoona Thomas halkii ku soo saaray baytari qaasa kaasoo ugu talagalay noocan baabuur. waxay yaataba laakiin sida aad qiyaasay labadan nin ayaa waqtigaas ikhtiraacoodan ku guulaysanin, ayagoona isla markaas ku fashilmay fikradda muwaalida ah. laakiin isla 100 sano kadib waxaa riyadaas mar kale dib u soo nooleeyay kambani laga leeyahay waddanka China, kaasoona ka soo bilowday meel hoose ilaa uu ugu dambeyntii ka noqdo mid ka mid ah kambaniga baabuur ee ugu weyn dunida. kambanigaasoo maanta lagu magacaabo BYD. haddaba si aan u faahno qisadan waalida ee kambanigan aan hal mar dib u laabana weliba taariikhdu markii 1966 tuulo lagu magacaabo Wufi oo ku taalay waddanka China, halkaasoona ku dhashay aasaasaha shirkaddan BYD oo lagu magacaabo Wan Juanfu. haddaba waqtigii dhalashadiisii Wan, China ayaa ku jirtay mid ka mid ah waqtigeeda ugu adkaa, ayadoona tuuladiisan uu ku noolaa aysan lahayn wax biyo iyo weliba haba yaraatee wax koronto ah, ayadoona isla markaas uu ka dhashay qoys aad danyar u ah, sidoo kalena ku noolaa nolosha midda ugu adag. waxay yaataba Wan aabihiis ayaa mid nijaara, halka hooyadiina ahayd mid beer qodataa, sidoo kalena quudinaysa 8 carruur oo ku jira Wan. sida yaataba aabaha Wan ayaa mid mar walba ka taxadar carruurtiisan, walow uusan u awoodin waxyaabo badan oo ay u baahan yihiin, asagoona isla markaas waxyaabo badan bari jiray. qaas ahaanna Wan uu ahaa mid aad u jeclaa in aabihiisa uu mar walba ka fiirsado farsamooyinkan gacanta uu sameeyo. laakiin markuu Wan jirsaday da'da 13 waxaa dhacday in aabihii laga helo cudurka kansarka, kaasoona isla markaas zaa'id ugu fiday, ayadoona isla muddo koobanba uu cudurkii ahaa mid la dhintay isla markiiba. midanoona kalifteen xaaladii qoyska ayba ka sii darto sidii ay markii hore ahayd kadib dhimashadii aabahood oo ah mid habeen iyo maalinba u dadaali jiray. intaas kadib waxaa dhacday in walaalkii weynaa uu bilaabay inuu iskuulkiisa iskaga baxo si uu isla markaas qoyskiisan u qoodiyo, halka dhanka kalena gabdhihii la dhashay waaweyn ay ku qasbanaadeen inay guursadaan si ay bal qoyskoodan culayska uga qaadaan, ayadoona dhanka kale walaashoodii yareed ay u direen xarunta xanaanada carruurta maadaama aysan u awoodin xanaanada ay u baahan tahay cunugtan yar. haddaba waa markuu Wan garuusaday in sida ugu fudud ee qoyskiisan culayska uga dulqaadi kara ay tahay oo keliya asagoo waxbarashadiisa xoogga saaray, sidaas darteedna shaqo fiican hela. waxay yaataba laakiin 2 sano uu iskuulkii dhiganayay kadib waxaa mar kale dhacday musiibo midii horeba ka daran, ayadoona dhimashadii Wan gaabiyey kadib ay mar kale halkii ku dhimatay hooyadii macaan, weliba iyadoo beertii ka shaqaynaysay. mida waxaasoo dhan ka sii darneed ayaa adig waqtiga Wan maqlayay dhimashada hooyadii uuba imtixaankiisa dugsi dhexe uu fadhiyey, asagoona halkii kaga soo cararay kadib markii uu maqlay dhimashada hooyadii, taasoona keentay in Wan uu halkii ku waayay fursaddii uu kaga qaybgeli lahaa iskuul xirfad oo uu ka qaybgeli lahaa hadduu imtixaankaas geli lahaa. laakiin waa markii uu walaalkii weynaa dhexda u xidhay sidii walaalkiisan yar waxbarashadiisa ula wareegi lahaa, asagoona walaalkan weyn ee Wan waqtigaas ahaa mid guursaday, sidoo kalena faamili leh. haddaba inkastuu Wan waqtigaas go'aansaday inuu iskuulkiisa halkaas ku dhaafo, sidoo kalena uu shaqo raadsado, haddana walaalkii ka weynaa ayaa ahaa mid aan haba yaraatee warkaas ka yeelin, asagoona ku amray in waxbarashadiisa uu dhammaysto, sidoo kalena uusan ka welwelin culayskan uu ku haya ayaga, ayadoona walaalkii iyo xaaskiisu ay waqtigaas ahaayeen kuwo wax walba u samaynayay sidii uu Wan waxbarashadiisa u sii wadan lahaa, ayagoona isla markaas toddobaad walba xoogaa lacag isugu dari jiray, heer marka ay mararka qaar waayaan lacagtaas ayba u soo daynsan jireen. waxay yaataba ugu dambeyntii dadaalkaasoo dhan meel bannaan kuma soo dhicin, ayadoona taariikhdu markii 1983 Wan halkii ku helay aqbalaadda jaamacaddiisa lagu magacaabay Central South University, halkaasuuna ka baranay maadada lagu magacaabo Metallurgical Physical Chemistry, midanoona noloshiisa gebi ahaanba bedeli doonta. haddaba saaxiibayaal intaan aan guda galin qaybta xigta ee muuqaalkeennan, fadlan ha ilaawin inaad nagu soo biirto, sidoo kalena channelka subscribe saarato, iyo midda ugu muhiimsan oo inaad notification-ka furto si muuqaalada xiisaha badan ee soo socda ay isla markiiba kuu soo gaaraan. aan guda galno muuqaalkeenna.
waxay yaatay waang ayaa isla markiiba u guuray meeshii ay ku taalay jaamacadiisu ayadoona dhan kale walaalkii iyo xaaskii walaalkiiba ay ayaguna ahaayeen kuwa go'aansaday inay la guuraan waang sidoo kalena ay jaamacadiisii ag degaan halkaasna ay ganacsi yar ka asaasaan si faamilkoodan uusan u kala goyn ayadoona waang uu halkii ahaa mid waxbarashadiisii sidii loo baahnaa u barta halka maalmaha fasaxana waa mid faamilkiisan businesskooda garab siiya ilaa ugu dambeyntii taariikhdu markaad 1987 halkii jaamacadiisii ka qalin jabiyo intaasoo kaliya kuma uusan ekaanin asagoona mar kale bilaabay inuu si gudbo master degree masterkaasuna ka dhigtay ku takhasusida electrochemical engineering taasoona isla 3 sano ee xigtay uu halkii ku qaatay ugu dambeyntiina uu halkii ku noqday kormeer ku xigeen waxay yaatay 1993 waang ayaa sidoo kale go'aansaday inuu ka shaqeeyo macahad lagu magacaabay Beijing Institute halkaasuna ku bartay farsamooyinka baytariyada iyo walxaha kimikaalka ee muhiimka u ah horumarinta baytariyada ayadoona sidoo kale uu meeshan ka noqday general managerka meeshan sida yaatay isla hal sano uu ka shaqeynayay meeshan waang ayaa maalmaha kamid ah artikelka akhriyeen wadanka Japan uu joojinay soo saaridda nooca baytariya loo yaqaan nickel cadmium noocan baytariya oo ay sheegeen inuu dhaliyo dhibaatooyin dhowr ah haddaba dhibaatooyinkaas waxaa fursad ka arkay ninka lagu magacaabay waang oo diyaar noqday inuu soo saaro noocan baytari maadaama uu suuq lahaa laakiin dhibaatada jirta ayaa ahayd inkastuu waang ahaa managerka meeshan haddana waxaa dhacday in fikraddii ay ka soo horjeedsadaan madaxdii asaga ka sarreysay sidoo kalena ay go'aankiisan ka diidaan midaanoona ugu dambeyntii kaliftay in waang uu halkii kaga tago guud ahaan kambanigii si uu islamarkaas u aasaasay kambanigiisan u khaaska ah sidoo kalena aan lagu kantarooleynin ayadoona marka dhanka kale la fiiriyo uu go'aankaas ahaa mid aad khatar u ah sababtoo ah wakhtigaas ma uusan isku hubin haba yaraatay wax maalgeliyayaal iyo wax dayna uu ku dhisay kambanigiisan ayadoona waang uu bilaabay in wakhtigaasuuba ka shakiyay go'aankiisii uu qaatay wakhtigaasi ah ka tegidda kambanigiisa halkiina uu isku weydiiyey meesha ayaad wax ka bilaabi doontaa haddaba waa markii ay faamilkiisii mar kale garabkiisa soo istaageen sidii caadada ahayd si ay go'aankiisan ugu sii dhiirigeliyaan ayadoona markan uu dayn ka helayn adeerkii oo wakhtigaas ganacsada ah kaasoona deymiyey lacag gaadhaysa wakhtigaas 2.5 milyan oo yaan halkaasona taariikhdu markaad November 1994 uu halkii ku aasaasay kambanigiisan oo loogu magac daray BYD Electronics Company magacanoona isla markaas ahaa magaca wadada ay ka degan yihiin magaalada Shenzhen ilaa ugu dambeyntii waqti yar kadib uu magacaas u bedelay magacana BYD ama BYD waxay yaataba kambanigoodan ay waqtigaas ku bilaabeen shaqaale waqtigaas gaadhay ku dhawaad 20 qofood ayadoona si lacagtoodan ay u keedsadaan ay ku qasbanaan jireen inay seexdaan xafiiskoodan yar kaasoo in waqtiga hurdada ku qasbanaan jireen inay shift u sameystaan ayadoona sidaas adag ay ku shaqeyn jireen habeen iyo maalinba midaanoona oo adag awgeed ka lifteen xitaa waang uu xaadir waayay dhalashadii gabadhiisa oo waqtigaas ay mid dhalanaysay haddaba waang ayaa ugu dambeyntii la yimaaday fikradda inuu wax badan soo saaray weliba asagoo waqti yar shaqaynaya fikraddaasona idin haddii uu product fiican helo uu koobi gareeyo halkii uu wax walba bilow ilaa dhammaad samayn lahaa midaanoona ay kaga bilaabeen inay koobi gareeyaan baytariyadii ay soo saareen shirkadaha Japan sida Sony iyo Sanayo ayagoona ku sameynaya baytariyadaas dib habeyn oo keliya laakiin waxaa sidoo kale jirtay dhibaato kale taasoona ahayd lacagta oo haddii ay wax walba soo iibsanayaan waxaa ku baxaysa lacag aad u badnayd taasoona xalkeedu ahaa in wax walba uu asagu gacantiisa ku soo saarto midaanoona ugu dambeyntii uu manage gareeyay inuu dhiso system kaasuna ku soo saaray 4,000 oo baytari maalintii midaanoona ugu dambeyntii uu suurtagashay in BYD ay noqoto kambaniga baytariya ugu weyn China kaasoona soo saara noocan baytariya nickel cadmium ayagoona seeliskooda uu waqtigaas gaadhay in ka badan 150 milyan oo xabo laakiin intaasoo kaliya kuma filneen ayagoona bilaabeen isla muddadiiba ay ka faa'iidaystaan korukacoodan halkiina ay bilaabeen inay sii fadiyaan weliba markan heer caalami haddaba waa markii uu waang diray gabadhan oo lagu magacaabay Stella Lee oo ahayd sales manager taasoona uu diray shirkadda weyn ee soo saarta moobilada ee Motorola si ay isla markaas ugu soo qanciso shirkaddan inay iibsato baytariyadan BYD ayadoona ugu dambeyntii gabadhan xirfadeeda suuqgeynimo awgeed ay Motorola ku qanacday heshiiskaas si ay isla markaas BYD u siiyaan fursadan ayadoona heshiiskaas Motorola kadib ay sidoo kale kambaniyo kale oo badan oo waaweyn ay halkii ku soo biireen inay isticmaalaan baytariyadan BYD kambaniyadaas oo ugu horeeyeen Philips iyo Panasonic ilaa ugu dambeyntii ay sidoo kale ku soo biireen shirkadii ay BYD ayadoo markii hore koobi gareynaysay ee Sony iyo weliba Sonaya ayagoona markan BYD ba u noqday macmiil sidoo kalena ka iibsada baytariyadooda sababa jireen waqtigaas uu dhacay sixir bararkii weynaaye Asia 1997 midaanoona kambaniyo badan saameysay sidoo kalena ka lifteen shirkadaha kale ay la shaqeeyaan ayadoona 1998 ay BYD sidoo kale bilowday inay markeedii ugu horeysay branch kale ka furato meel ka baxsan China halkaasoo ay Netherland sidoo kale sanadii xigtay 1999 branch kale hadana USA sida yaataba waang asoo ka faa'iideysanaysay fiditaankaas waxa uu waqtigaas sidoo kale kambanigiisan ka diiwaangeliyay stock marketka laakiin nasiib xumo shirkadii Sony iyo Sonaya ayaa markan waang eedeeyay sabab la xiriirin oo ayaga koobi gareeyay ayagoona markan kiis cad ku soo oogay ilaa ugu dambeyntii kiis dheer kadib ay dib u heshiiyeen
ayadoona intaas kadib taariikhdu markaa 2002 mar kale waan kambanigiisan ka diiwaangeliyay stooga midanoona keentay maalgeliyaal badan ee waqtigaas u tartamaan inay iibsadaan stooga kambanigan ugu dambeyntiina sanadun kadib ay BYD halkii ku noqotay kambaniga baytariga ugu weyn dunida haddaba waxaad isweydiinaysaa haddii ay BYD keliya ay shirkad soo saarta baytariyada oo keliya sidee ayay ku noqotay shirkadan baabuur sidoo kalena maanta caalamka oo dhan haysata ee suuqyadii oo dhan la wareegtay haddaba waa meeshan meesha ay wax walba ka bilowdeen kadib markii uu waan gabagabeeyay suuqii baytariyada sidoo kalena uu ka gaadhay meeshii ugu sarreysay waxa uu isla markiiba dareemay in la joogo xilligii uu sii gudbi lahaa suuq kale oo kiisan ka weyn waana markii uu ogaaday in suuqa baabuurta uu yahay meesha uu mar kale boqortoyadiisan ka asaasan lahaa asagoona isla markii uu maalgeliyaashiisa u sheegay inuu bedelanayo shiftiga sidoo kalena uu wareegay dhankaas iyo baabuur samaynta midanoona maalgeliyaashiisii aad uga xanaajisay ayagoona waan ku tilmaamay inuu waalan yahay sidoo kalena ayba kala laabanayaan maalgelintoodii ninkan sida yaataba laakiin ninkan ayaan hadalkaasoo dhan wax dhag oo dhigin ayadoona taariikhdu markaa 2003 uu halkii ku iibsaday sheerka 77% kambani lagu magacaabayay Kenjin Automobile oo soo saarayay baabuurta sheerkanuuna ka bixiyay qiimo gaadhay 270 milyan oo yan ayadoona dhan kale ay maalgeliyaashiisii hadalkoodii kaga dhabeeyeen sidoo kalena ay kala laabteen sheerarkoodii BYD taasoona keentay in BYD ay waqtigaas khasaartay lacag gaadhaysay 350 milyan oo dollar weliba isla muddo 2 maalin gudahood sida yaataba waanka ayaa kasii socda asagoona diiradda saaray uu keliya kambanigiisan cusub haddaba waanka ayaa maalintii koowaad bilaabay inuu isticmaalo khibradiisii baytari si uu isla markaas u soo saaray gawaadhidiisa korontada ah laakiin intaas ka hor shirkadiisan ayaa ahayd mid iibisay gawaadhidii hore ay soo saarayeen ayadoona markan magaca laga bedelayo oo keliya sidoo kalena lagu iibinayo loogadan ah BYD waxay yaataba laakiin waqtigaas BYD ayaan haba yaraatay wax faa'iido ah xaqiijinin ilaa laga gaadhay 2005 markaasuna waan bilaabay inuu soo celiyo fikradiisii hore ee waalidayd taasoona ahayd koobi garantii haddaba ninkan ayaa soo qaatay baabuurka lagu magacaabo Toyota Corolla oo waqtigaas ahaa baabuur aad loo wada jeclaa asagoona isla noociisii oo kale sameeyay sidoo kalena ku sameeyay magaca BYD F3 ayadoona midda kale ee waalidaha ay ahayd in sidii uu baytariyadu ku sameyn jiray sidaas la mid uu ku sameeyo Toyota asagoona qiimaha gaadhigiisan ka dhigay kala badh qiimihii gaadhiga Corollada midanoona markiiba uu soo jeeday in baabuurkiisan uu gaadho guul aad u weyn ayadoona muddo isla sanad gudaheedba lagu iibsaday in ka badan 100,000 oo xabo ayadoona BYD aysan halkii ku sii joogsanin sidoo kalena ay soo saareen noocyo kale oo baabuurkan ah sida F3R iyo weliba F6 halka dhanka kalena uu ahaa mid mashruuciisan kale ee baabuurta korontada waa mid hoos ka sii waday dhanka kalena BYD ay mid marba mar ka sii dambeysay sii weynaanaysay heer ay gaadhay 2007 la dhiso Binshan Complex meeshan oo ahayd meel sida magaalo camal ah sidoo kalena ka koobnayd warshadii iyo weliba meesha ay shaqaalaha iyo qoysaskoodu degi lahaayeen si isla markaas aysan shaqaaluhu ugu khasbanaan inay meel kale uga yimaadaan shaqada halka waana uu ahaa mid ayaga la noolaada midanoona sii kordhisay xiriirka kambaniga iyo weliba shaqaalaha sida yaataba BYD ayaa sidoo kale kusoo bandhigtay showgii Detroit ee 2008 baabuurkeedan oo ahaa BYD F6 DM baabuurkan oo ahaa baabuurkoodii ugu horreeyay ee isku dhafnaa ay soo saaraan kaasoona ku shaqaynayay koronto iyo weliba baasiin waxay yaataba baabuurkan ayaa sidii looga baahnaa aan noqonin asagoona isla markiiba dhaleecdooyin badan la kulmay kadib soo bandhigidiisii halka kambaniyo kale oo badnaa oo waqtigaas ku rafaadsanaa soo saaridda noocan gaadhi ayba ku qaateen ideadan BYD kambaniyadaas oo inoogu horreysay Tesla oo isla sanadkaas soo saartay Roadster baabuurkan oo kaga xoog batay BYD dhan walba kaasoona isla markaas suuqyadii oo dhan kala wareegay waxay yaataba laakiin guuldaradan ayaa BYD u noqotay fursad kale ayadoona kambanigan yar ee Chinese ay markiiba soo qabteen indhaha qaar ka mid ah maalqabeennadii ugu waaweynaa dunida ee wax maal gashta maalgeliyaashaana cid kale ma aha waa Charlie Munger kaasoona saaxiibkiisa Warren Buffett ku qanciyay inay maalgashtaan kambanigan mustaqbalka ee BYD halkiina Warren ku maalgashtay BYD qiimo gaadhay 230 milyan oo dollar taasoona uu ku helay 10% oo shirkadii ka mid ah midanoona stoogii BYD ka dhigtay mid hawada isku sii shareera ayadoona dhan kale waan halkii ku noqday 2009 ninkii ugu hantida badnaa wadanka China waqtigaas qiyaas agoon yar sidoo kalena ku soo barbaaray nolosha ugu adag haddana ku noqday ninka ugu hantida badan wadankiisa weliba waqti yaroon hanti gaadhaysay 5.8 bilyan oo dollar midanoona dhan kala dhalisay isla sanadkii xigay ay BYD marka la soo saarto baabuurkeeda koronto ee dhammaystiran ee lagu magacaabay E6 waxay yaataba BYD ayaa sidoo kale waqtigaas dayacday baabuurteedii kale ee caadiga ah taasoona dhalisay in sanadkaas ay BYD la kulanto khasaarooyin isdaba jooga sidoo kalena gaadhay in faa'iidadoodii ay waqtigaas hoos u dhac samaysay in ka badan 58% ayadoona marba mar kasii dambaysa hoos u dhac sii samaynaysay heer Elon Musk waqtigaas ku maadsadaba kambanigan sida yaataba waan ayaa mar kale fikiray asagoona isweydiiyay xagee ay wax ka qaldan yihiin sidoo kalena ay wax ka socon laayeen iyo mid ugu muhiimsan oo ah sida ay soo laabasho ku sameyn kartaa haddaba sidaad qiyaasay mar kale waan ayaa bilaabay inuu adeegsado fikradiisii waalidayd ay ahayd koobi gareynta
asagona markiiba iska xaadiray xarunta Mercedes si uu isla markaas u iibsado baabuurka ugu quruxda badan ee hayaan kaasoo ah S-Class asagona keenay xaruntiisa sidoo kalena isku keenay injineeradiisa waliba kuwii ugu xirfadda badnaa si ay u kala furfuraan baabuurkan cusub sidoo kalena ay nuuciisa oo kale u soo saaraan halka dhanka kalena ay maalgeliyaashiisii Warren Buffett iyo Charlie Munger ay waqtigaas waan ku muujiyeen taageeradoodii ayagoona u sheegay inay la jiraan wax walba oo dhaca sidoo kalena aysan marna u faarjinaynin garabkiisa waxay yaato sanadadii xigay BYD ayaa mar kale bilowday inuu ku soo noqoto booskoodii kamida baabuur ee ugu weyn gudaha China kadib markii ay dib u habeyn weyn sameeyeen ayadoona 2016 uu kambanigu saleskiisa ziyaaday in ka badan 130% marka la eego dhanka baabuurta korontada midaanoona dhawaantii ay soo laabashay aad u weyn ayadoona maamulaysa suuqyada China waliba 65% halka dhanka kalena uu kambanigu mid suuqyada isku sii fidiya sidoo kalena xitaa soo saaro basaska waliba kuwa elektaroonig ah laakiin mar kale haddana waxaa dhacday in dawladda China ay mar kale BYD cadaadis xooggan saarto cadaadiskaasoo ah inay kala laabtaan caawimaadii ay markii hore u fidin jirtay shirkadahan soo saaray baabuurta elektarooniga sida BYD oo kale midaanoona BYD mar kale ku noqotay dhabarjab kale halka dhanka kalena Elon Musk waqtigaas soo saaray baabuurkiisa elektriga ah ee Y model kaasoo jabiyay rikoodh aan innaba caadi ahayn rikoodhkaasoo Tesla ka dhigay shirkadii ugu weyneed waqtigaas halka sidoo kalena isla China ka dhisay shirkadiisii Tesla ayadoo xaalku sidaas ugu adeegay BYD haddana waxa uu sii tirsoomay waqtigaas u dhaco koronii kaasoo bilaabay shaqooyinkii oo dhan uu albaabada isugu laabo sidoo kalena ay wax walba dhulka galaan sida yaataba laakiin Wang waxa uu la nool yahay shaqaalihiisa asaguna sidaan hore soo sheegnay isku meel degan yihiin haddaba waa markuu Wang ka fikiray sidii uu bandamigan uga faa'iideysan lahaa maadaama uu shaqaalihiisii iyo warshadiisiiba uu haysto asagona markan bilaabay shaqaalihiisii sameynay baabuurta oo markan bilaabay inuu u diro sameynta face maskeeda iyo waliba nadiifiyayaasha sidoo kale waxaa laga yaabaa inay isleedahay inay iska daayeen soo saaridii Gawadhida laakiin may ayadoona shaqadaas baabuur sameynta ay dhanka kale ka socotay ayadoona kadib markii uu bandamigii dhamaaday uu Wang soo saaray mashruuc kale kaasoo isla markaas kambaniyada la tartamay oo dhan la yaab ku riday haddaba Wang ayaa waqtigaas soo saaray nooc battery oo baabuur kaasoo si hoos uga shaqeynayay sanadadii la soo dhaafiyay oo dhan noocan battery oo lagu magacaabay LFP batterigan oo waqtigaas midaan marnaba la filanaynin sababtoo ah noocan battery ayaa mid ka amnisanaa kana xawaaro fiicnaa dhammaan batteriyada isaga ka horeeyay ayadoona noocan battery uu bedelay dhammaan sharciyadii hore ee caalamka baabuurta elektriga sidoo kale BYD kaliya ma aysan wax ka bedelin bayteriyadeeda ayadoona sidoo kale ay bedeleen disaynada Gawadhideeda ayagoona isla markaas shaqaalihiisa iyo dadyo kale oo xirfad leh si ay u soo kordhiyaan wax cusub ugu dambeyntii dhamaadkii 2020 ay BYD halkii ku soo saartay Gawadhideeda elektriga ee lagu magacaabay Han kaasoo aan hore loo arkin noociisan oo kale xitaa Tesla ayadoona intaas kadib ay xigsadeen baabuur kale oo midba midka kale ka daran yahay sidoo kalena ay xitaa ku jireen Gawadhida sportska waxay yaato BYD ayaa markan noqotay midaan haba yaraatay waxba laga qaban karin ayadoona saleskeedii uu hawada isku sii shareeray halkaas ayna muddo isla 3 sano gudaheed uu saleskeedii kor u kacsamay in ka badan 700% heer xitaa Tesla markii dambe isku dhiibtay BYD sidoo kalena ay ku tiirsanaato bayteriyadeedan haddaba BYD ayaa markan suuqyada China qabsay in ka badan 90% ayadoona markan u wareegtay caalamka oo dhan ayadoona fiditaankaas ka bilowday wadanka Brazil halkaas ayna kula wareegtay 70% suuqa Brazil ee Gawadhida elektarooniga waxay yaato ugu dambeyntii taariikhda markii 2024 BYD ayaa halkii si nadiif ku noqotay kambaniga baabuur ee korontada ee ugu weyn caalamka oo dhan ayadoona halkii hoggaanka kala wareegtay Tesla midaanoona dhammaan reergalbeedka oo dhan show ku riday haddaba BYD ayaa la dhihi karaa inay meel fog ka timaaday kadib bilaabashadeedii adkeedii wiilkii yaraa ee agoonka sidoo kalena ku soo barbaaray nolosha ugu adkeyd kadibna dadaal dheer iyo dulqaad badan kadib gaadhay meeshiisii ugu sarreysay asagoona meel walba uu taga noqonayay qofka koobaad ayadoona maanta marka la joogo ay BYD tahay mid hadda bilow ah haddaba adiga maxay kula tahay mideeda kale ma isleedahay inuu jiri doono kambani ku soo dhawaanaya kambanigan BYD hoos nagula wadaag sidoo kale haddii muuqaalku ku cajab geliyaa ilaawin inaad ka war doonto muuqaalada kale xiisaha badan adigoona ku dhufanay thumbnailada shaashada kaaga muuqanaya halkaas ayaa noo balana